ودن maanta munaasabadan aan u joogno oo aan rajaynayno in lagu saxiixo heshiiskii muddada soo socday bacda isjiid iyo dib badan oo ummadda Soomaaliyeed ay soo martay natiijada maanta la gaaray waa natiijo aad loogu rajo weyn yahay oo muuqata oo ku aadan midnimo iyo doorasho waxaan rajaynaynaa oo ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeynayna ama ugu bishaaraynayna haddaan nahay xisbiyada أنا أقول الله مجا حزب كتير وحنا رجعنا إن نقطة مناسبة مدي نقول ليس وما تصوم علينا أيوة أيصله كان صباح دونا دورشة لو وجد بدونا دورشة قال له عن مستقبل كان دورشة خاف يعاد لقى جاري دونا لكن تي في سمن يساعد وما سين هاي رجع عن مانتلا أنه هنا وحاجة ورجوين أو كنتوا وما تصوم على المال الجوك تبع أي دجاها عندها با دجاها نقطة عندها نقايان أنا ما أنتوا عم خاتكنا هاي markaati ka noqon doona heshiiskaas oo hadda aan sugayna saacada muddo yar kadib ay soo gali doonaan madaxda qaranka oo dhan iyo maamul goboleedyaduba oo lagu saxiixi doono heshiiskii la gaaray oo muddo badan laga dhursugaayay waxaan rajaynaynaa insha Allah bidilaahi alkariim in guul la gaaro oo ay noqoto tii ummadda Soomaaliyeed bays u noqon doonta oo aan ku gaarno doorasho qof iyo codam mustaqbalka annaga dan xisbiyadanahay wali farbaa noo taagan waxaan leenahay tani waa inay noqotaa tii ugu dambeysay doorasho qof iyo cod waxaan ahayna dalkani maanta daawo kuma gaari doono laakiin tan waa transitional ugu dambeeyay ku gudbidii ama waa bridge ugu dambeeyay lagu gudbaayay insha Allah bidilaahi alkariim salaamu